dastuurka Soomaaliya loo dejinay ninka xayeysiyo waa murtad ninka idaacadiisa ka faafiyana murtad weey ninka ka qayb qaatana waa gaal xalaal dami wal maal islaamta waa ka furan tahay gabadh muslimiin looma guurin karo meesha ku dhintana wadasna lagu xamaali karo Soomaaliya lagu xamaali karo in la geeyo Siberia iyo la geeyo weey muxuu Netanyahu loo geeyay shayaadiin gaal loo geeyay dastuurkaas la wado ee Soomaaliya loo soo wado ninka asagoo og wuxuu yahay ka qayb qaadka intuu doon hal eekada waa kaafir murtad weey Soomaaliya warka waa inay fahanto gaalnimo la dejinayo iyo diin la'aan la agaasimayo ninka asagoo ka qayb qaata haba yaraatee waa kaafirun bijmaac salaf sahih murtad way murna masalada malaha waa in lagu baraado qoliyo wadaada wax ka dajin baale abwaana Nairobi laga kaxiyo Soomaaliya maamay eray bixintay fiirin hayaan tarfac tirid iyo eray halbeega cilmiyeed bay toosin hayaan mar gaalnimo noo toosinaysa aad toositada gaal baa tahay saa u toosida ku gaaloobaysa aad ka qayb qaadato bal markaad Nairobi ka dhaqaaqaysid go'aansatay hawsha aad ka qayb qaatad galta go'aan qaadka inaad ka qayb qaadato dastuurka iyo gaalnimada dejinteeda iyo naashnaashkeeda baad ku gaaloobi muslimiintu waxay yiraahdaan waman azama an yakfura ba'da shahrin kafara fil hal ninka go'aansada bil kadib inuu gaaloobo haduu gaal yahay warka salafka sidaas way waxa tirada iska joog muslim shabaab iyo balaaya meeshan joog ku cunahaya bil kadib marka Nairobi tagto ayr iska gaaloob masaajidka adoo ku jira hadad go'aan ka gaadhay inaad bil kadib gaalowdo marka Nairobi tagto xilligaas aad gaaltay murtad laakiin waxaan ku talinayaa dhowr kor waa taliyay talooyinka waxa weeye andimada iyo nidaamyaha Soomaaliya ka jiro dhan in la dubiyaan ku talinayaa Puntland Somaliland Jigjigaland Banaadirland kulli ila dumiyo ay nidaam kasta ama Jubbaland ha noqdo ama Baydhabo ha noqdo ay nidaam kasto oo Soomaaliya leedahay oo nidaam diineed ahayn iyo imaara islaamiya ala kitaabin wa sunnatin min rabbina an ku taagnayn hal la dumiyo juhdi kasta lagu hawlihi Abdullah Yusuf iyo kuwa Nuur Cadde iyo hebelka Cali Geedi iyo Shariifku iyo Faroole iyo muxuu Siilaanyo iyo isheeg ina iliga shay la doortay sheedaanka murtadka ogaadeen kulli nimankaas oo dhan waa in gacan loola tago waxay wadaan la baabi'iyo nidaamkooda la dumiyo هذا هو الواجب في الدين هذه لا أودي كرم هذا لا أودي كرم أفكان كذا واقعنا سيد الله دجال يا شريف كوين الله دجال حاكم كبتلان حكومة جرو وكتلية وين الله دجال حاكم ككتلي جيجا يقعدين وين الله دجال منك كتلي السماء نفس الشيء وعسك بابوي وقال قال كالكالوي واحد دون كمان تكشراي نمان كان هذا يسيو كفريات كلا كودع عن ذمة كان الله ويسبوت جريان ويتاجران قال أشقيان عدونا وحويين توحيد كي الدعوة عدويين نمان كان نوع عاسى انت يسن حدد سنين دارود مربوقه بشلها هلا قبط قروي مع حفيزك وفر الله فريست حفيزك كسر جيدا waxa iskale safarada Ethiopia iskale mid ogaadeen oo ra'iis aqaa fadhiyo oo malazan u soo dirsada fadhiyo go'aan kama hawlaha harti ma xukumi karo Faroole iyo qadiyad ma jirto waxba kama qaban kara asoo la soo tashanin gaalkan ogaadeen ka rafadhiyo aan la soo tashanin maxay gaalkaas gaalka weynaa ee xukumay baa soo diray maca salaam 60 mitir ee ku yaala Muqdisho gudaheeda adisaba laga xukumaa jigjiga adisaba laga kulli halkaas laga xukumaa go'aanka Ethiopia waxa weeye khilaal 50 caaman inay Muqdisho ay ka soo galaan baarlamaan adisaba laga doorto warku intaas Muqdisho iyo koonfur inay qoto gobol sida Kilfaaf oo kala ah baarlamaan ka soo baxo adisaba wada fadhiista federal الحكومة الفدرالية الإثيوبية الشاملة العامة الكبيرة وحكلا أود ويدين ضدك قضية ديني هي دينتيني هي دنمديني هي قرنكيني هي إسلامديني دفاعها هي فرحك قال هذا حق أين ترين قبل نمك كريه وحنوها هذي وليش يرك يقول قال لي عيا الشباب اللي هذه وحي لها المال إيجاده باصوا مالك سهاري وحي كلام أحمر راعي مد قال أقلي مد ويل مكانبا إسكر راعي مد سواء محو هاي كوكويا طيب هي مد محو نغانو كنديان مان بان هاي بريتش مان بان هاي كو هايو دور كبقلي يسكت تجي قضية هي جبنة هي ضدنمو هي عدو هي الظلم هي الدل هي جميس إن لسكت دفاعه نمان كاسي كوارد ما طيب مسمى بمسؤول شيئنا أنت أيضا إلهي النود دايو الله النوكر ريو فرها لقى قادان خيري ونقل ترينين الصومالي هذا عقل ليه هاي وعليه شيء قضي بقيده هري فجستياش الصومالي الرقي كميد أوامن كمان نور مرين كجوا واحد ما قاعد يسجل ماي يا أسوأ ميل مقاحي أفردية وكوب شعب هي مذ كرة أو صومالي كويدا والنا أي نمان كان مجاهين توحك شيء كوب شعب كوش وضي وضي علمانيا أو شيطان أوي وذادنا ما بأرك كهرباء وحالي هبلوا محد كودي شويل كوشاه وش بتوجيس حوري وح صومالي كرامة إلهيت بن من كمان الدفاع هاي وحيد دوري من هالنقدين إنك وحش وديلها يا أبو حمارة أنت تمد ومسجدنا كوحر حارتي ويصليك ملتري صوماليا تمد وقاشان لك كتلسي وواحد أنت صميسي بان واحد يعد هلا واي وأيه وميين واحد إياه
وإذا نما هوش جيلي من كل قد بها يابور أنا لحسن سنة اللي يتبر وطن كنا ندفاعه وانقرن كد إلاليه أنت أنا عن قبل منك قبلها يا ما أنت نيجي وحكشه كوب شامي تريبا تقنبه كسماية وحكود قال لما شباب يو شال دارود هرتي يا أبصموا نعم يا شباب أو سومالك الله سعود باكود قال لنا وذاديه حل هوشن قيمية وحدنا القاتل والمقتول في النار كل ود خام رام نار تبي تقولها يعني ورتصوا سياسة ضد كاني لوضن كوحود midka khaldan sheega shabaab baa khaldan miyaha islaamka laga qabta dhaha nimanka shabaabka kismaayo ku dagaalamay iyaga khaldan waana tuugumada laga qabta cadeeyo umada u sharxa aanu gurmanni aysan ka ahayn jaala daarood iyo wadaadaha la socda meel saara oo waxa tiradan Axmed Madow iyo kooxdiisu iyo daaroodka la safan kulli waa khaldan zaalimiin way hal qabta ma waxa dheen khamram ahlu naar aniga la yacadaadiyay anu waxa ima cado waxa nimankan xukumkooda reed jaala daaroodna warbay sheegan gar quruxsan bay sheegayaan shabaabkuna mid ayna quruxsan bay sheegayaan kana gar la hawshi garti hawiyo kala qaadahayaayo aydiidna jidle calina gar la yiraahday calimaha heshiisiya la yiri aydiid duqay hawiyo inta la garo koox hawsha fiiriye aydiid waa nin soo dagaalamo daarood kala gaabiyo xuduudda jirsiyo madheera ka tuuray iyo balad xaaway midna ku shubay muxuu Kenya ku shubay calimaha waa nin la soo doorto meelaha laga keenay Djibouti reer Yurub wataan oo xogo loo soo carabtu taageertay oo i'tiraaf duwali u haysta ninkana bastoolada akiisa ka soo horeeyo Soomaaliya ku maamulaya marka waxay dheen calina gar leh aydiidna jid leh hawshu waa xidhantahay aniga waxa ay hawshan ismaaya ka dhacday warkeedu ima cado waan ka warsu ilaa cadaanayso zaalimkuna banaanku soo bixi doona madluumkuna banaanku iman doona way socotay Axmed Madow gaalo u galay way socotay Axmed Madow kooxisi ogaadeen Kenya iyo Ethiopia u kala galeen kitaabka Tirmidhi dhaxaysan ku sheegay inuu zaalim tuugayo murtad ah umadan laga qabo yaani waliga umada lama lugooyo waxa uu ku cadaano u sheeg ha barbarin haduu cadaan wayna ka gaab nimankii shalay difaaciyay laha Axmed Madow saxan iyo kooxdiisu alqaatil waqtul fi nar khamram adisadu hada joogo saaladii hubbu soo qadanay waa la ogyahay ma ka hadlaan